السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaasha iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida inagala socda. Halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway oo aad u taagan sidii ay bulshadeeda uga wacyigelin lahayd arrimahooda muhiimka ah si loo dhiso garaadkooda qofka, qoyska iyo qarankaba. Haddaba maanta waxaynu halkan kaga doodi doonaa oo aynu ku haynaa barnaamij dadwadaagga ka oo saabsan ama ciwaankiisu uu yahay sidee annagoo kala dow iyo danba ah uga wada shaqayn karnaa danta guud. موضوع عاد مهم وأه السيقل عقلي عقيدة يندقى بقصة ليس أغف دودي دونا سيان أغوك أيضا وجيلش الدنبا أو أي أغفا في ديستان وجد كبرنامج كان في Somali Voice وحبو يهي إن آن دراسين في علم بارس قصة من دباتوين كهيستا بلشدة Soomaaliyeed سي لوغوها لو حوارا هذا مو حضوضا إن قلق إن قادة دونا أو دورتا إن قولا سوغان أضي وهي أرقا إن دقيقانا سوغيهنا عبد الرحمن زيو كسودو مدشة sidoo kale in lagula sugan Sheekh Cabdulatiif Axmed oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ahna imaamka masjidka muslimiinta magaalada Bergen ku soo dhawow madasha akaloona lagula sugan goobta Cabdulqaadir oo kamid ah macallimiinta aqoon-yahanada iyo dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ku soo dhawow madasha waxa kale doonta in nagala qayb qaadan doono Muna Cumar oo kamid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ahna aqoon-yahanad ka shaqeyso arrimaha bulshada iyo horumarintooda soo dhawow markaa kala goobta in lagula sugan Xasan Bilo oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku metela golaha deegaanka dalka Norway kana tirsan xisbiga cagaaran waxaan leenahay ku soo dhawow madasha waxa kale doonta in nagala qayb qaadan doono aqoon-yahan Ibrahim oo kamid ah aqoon-yahanada wax ku bartay kala soo baxay jaamacadaha Norway markaa ku soo dhawow madasha sidoo kale waxaa goobta inagula sugan oo fikirkooda iyo aragtidooda nala wadaagi doono aqoon-yahanada kale ah Cabdulaahi Ducaale iyo Xasan ku soo dhawaada madasha Somali Voice in Norway Soomaaliyeed odayaashu waxa uu siiyey door muhiim ah taasoo ay ku mataysay qadarin iyo tixgelin iyo inay ka shaqeeyaan gooyaan garta bulshadooda waxa ayna Soomaaliya markii la joogay ka muuqdaan bulshada oo ay ku leeyihiin kaalin dhexdhexaadin isu keenin iyo mudnaan ay bulshada uga dhex muuqdaan dhulka qurbaha la yimid galbeedka ama Yurub ama sidoo kale ah u soo daadegay Norway odayaashii Soomaaliyeed kaalintoodii kama soo baxaan mana ka muuqdaan maxaa sababay ma systemka kan jira galbeedka ama Yurub ama Norway ayaa hoos u dhigay kaalintoodii mise iyaga ayaa biyaha fadhiistay oo doorkoodii gabay waxaa weydiinayaa oday Soomaaliyeed sugayahan Cabdiraxmaan Ziyo ku soo dhawow كور ميزان بان لهين و madaxeena kor u jiray lugeena hoos jiray hadda laakiin odayadii meeshuu hoosiisa la geeyay miisaanka uu sirnaa kale soo roogay marka halkaas ay ka gaabinay ma garat waana nidaamka halkan yaala waa maasta aan wada ogsoonahay culimadii hore waxa ay ahaayeen iyaga oo kala fikir iyo aragti iyo mowqif duwan kuwa is-ixtiraamo oo isqadariya oo mudnaan iyo tixgelin midba midka kale uu ku hayo waxayna ku xusi karnaa imaam Shaafici oo ah imaamka aynu madhabkiisa haysano iyo imaam Abu Xaniifa oo waxay kala qabeen laba fikir oo kala duwan oo iska soo horjeeda marka ay timaado sida kamada ay isku taabtaan ragga iyo dumarka oo imaam Shaafici waxa uu ku tagay in weysadaasi ay burtay halka imaam Abu Xaniifana uu ku tagay in weysadaas aysan burin haddana labaduba tixgelin mudnaan iyo qadarin ayay sii jireen oo qofba qofka kale kama saari jirin diinta mana ka xigsan jirin hay'ashee waayadan daba waxaynu aragnaa culimadii oo ishaysata isqaqabsanayso oo kala fikir duwan oo xitaa mararka qaar diinta iska xigsanayo oo ayba dhacdaba mararka qaar in ay qaarkood diinta iska saaraan maxaa isbedelay maxayse tahay cilada culimadii naga gashay ku soo dhawow Sheekh Cabdulatiif dadku bani aadam kala duwanaanshiyo waa qayb nolosha ka mid ah waxaan xasuustaa mar jaamacadda Nasrullah joognay baa nin macallin ah wuxuu noo keenay background erey bixin cajiib oo la dhaho uu inay fellaska dadku ay wayna kala duwan yihiin wada jirna waa laga shaqeynaya waxa lagu wada jira kala duwanaanshaha ana wax ku macnayn marka kala duwanaanshaha wada jirka kala duwanaanshaha ku macnayn
malaha waxaan isleeyahay dee nolosha weligeedba kala duwanaanshuhu jiray, aragtidaa keenaysa, qofka caqligiisaa keenaya, duruufta nololeed baa keenaysa, aqoontiisaa keenaysa. Innaga dhibaatooyinkeenna haysta qayb ka mid a si guudna waxaan uga mid nahay run ahaantii dunida ee soo wada baaba'day. Marka oo dowladihii ay siyaasadaynayaan diintii, walba ninkii meel joogaba uu koox uu rabo in u hadasho uu raadsanayo, taasi waxay keentay muslimiintu run ahaantii baaba'a ku dhacay ee faraha badan leh inay qayb ka noqdaan. Markaa si guud waxay nooga wada xumaadaan odhanayaa dantii guudan ku soo noqonne, sarta ay ka kurunsan tahay dowlad la'aantu waxay keentay majaalis culimo oo lagu heshiisaya marjiciyada oo dadka kala hagi kara in la waayo, in la waayo halbeeg dadka lagu eego oo qofkani ma culima mise ma aha. Qof walba inuu imika waa waxyaabaha iska furan ee aanantii tallada aanan la ilaalin weeyaan. Imika halkan oo kale dhakhtar haddaad sheegato waa lagu qabanayaa Norway, laakiin haddaan idhaho sheekh baan ahay waa iska furan tahay, cid ku diidi kartaa ma jirto. Dee dadkaa laakiin laga rabaa dadkaa kala garanaya, dadkee dadka u adeegay, dadkee dadkan dhaqankooga iyo bulshadan iyo hawsha oo nolosheedii wax ka qabanaya. Dee wixii intaa khilaafsanna dadku iyagaa dadka culimo ka dhiga ama caan ka dhiga, iyagaa laga rabaa inay yidhaahaan maya. siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan Norway kala tirsan xisbiyada kala duwan ee Norway ee siyaasadda noogu jiro. Sida aan wada ogsoonnahay, siyaasiga waxa uu ka soo baxaa xisbi. Marka koowaad waa inuu daacad u noqdaa xisbigiisa oo uu danaha xisbigiisa ka shaqeeyaa. Marka labaadna waa inuu daacad u noqdaa dowladda uu ka tirsan yahay oo uu danaha Norway ka shaqeeyaa. Midda saddexaadna waxa ay tahay inuu daacad u noqdaa uu ka shaqeeyo danaha Soomaaliya maadaama uu Soomaali yahay. Haddaba sidee arrintaa isku waafaqi kartaa oo idinkugu suurto gashaa inaad iswaafajisaan maadaama mararka qaar ay dhacdo in ay iska hor timaado danaha Soomaalida iyo danaha xisbiga iyo danaha dowladda marka ay timaado xag dhaqan, xag diin iyo xag arrimo kale oo sidee u xalisaa? Waxaan ku soo dhaweynayaa siyaasi Xasan Bile. siyaasadda galbeedka gaar ahaan dalkan hadda aan joogno waa mid ku dhisan iska wada qabso. Marka koowaad aasaaska iska wada qabaya. Marka labaad shakhsiga saa go'aanka iska, inkastoo xisbigu uu weli xoog leeyahay oo siyaasaddiisu ay shaqaynayso, haddana ma jirto cid adiga ugu qasbayso oo adiga aan rabin inaad samayso, sababtoo ah dimuqraadiyadda micnaheeda ayaa saasa. Marka anigu haddaan u arko tusaale ahaan in qodobkani uu lid ku yahay baardiga aniga aan wakiilka ka ahay oo aniga shakhsiyan iyo dadkayga ka soo horjeedo, qasab iguma aha inaan doorto oo aqbalo, qasab iguma aha. xisbigii oo dhan hadduu aqbalo na oran karaa anigu kan iyo banaanka dhisaayna. hooyooyinka Soomaaliya waa lafdhabarka iyo tiirka uu ku taagan yahay qoyska Soomaaliya haddii ay dalkii hooyo joogaan iyo haddii qurbihii la joogaan. Haddaba haddii hooyooyinka Soomaaliyeed aysan u suurtagelin in ay kameeyaan odayaashooda oo ay isu keenaan kana shaqeeyaan sidii odayaashu ay dan ummadeed oo midaysan uga shaqeyn lahaayeen, waxaa hortaagan in aad soo saartaan ubad kora barbaarisaan wadajirka, midnimada, isku-duubnida iyo hogaamiyaal waxtara waxna u qabta bulshada Soomaaliyeed. Ku soo dhawow Muno Cumar. waa sax, waa lafdhabarka nolosha, iskuma haysta taas. Laakiin odayga dee markuu wax soo qasayo horta islaanta kale ma tashto. dhibaatada haysata Soomaalida waa taas. Islaanta hadday tiraahdo odayga hor istaag wuxuu leeyahay waxaas adiga wax kaama gelin, sheekadan qabiil ay u taalahay adiga. Dumar waa maxaa dhiri gabadh ninkii guursatay ku tool tahay oo adiga arrimahaaniit wax kaama quseeyaan, waa sheekada saas. Way fiican tahay in caruurta hooyooyinka soo saaraan caruur waxtar leh oo kabaalkiseerta ah, way jiraan, way badan yihiin, laakiin qabiilkii aan wada. Sababtoo cunugaaga haddaad si walba u tarbiyeyso oo maxay adiga meel gaarsiisid tolkiisa aad jiidinayo, waxaa leeyahay reer hebelaa tahee reerkaaga meesha ama way ku jabeen ama way ku liibaaneene ha ka harin. Dhibaatadan haysato waa taas. Odayaashan aan ku noqonayaa qabiilka intaan naga daysaa, sheekada ha loo daayo dhalinyarada hadda soo baxday iyo islaamaha, markaas wax way noo hagaagayaan. Kan ku noolahay dal horumaray, dalkaasoo aanan qof ama keli waxna laysaga maqal, taasoo qasabtay in ummado badan oo dalkan yimid ay samaystaan ururada kala duwan. Waxaan dhihi karaa Soomaalidu waxa ay ka mid tahay bulshooyinka yimid Norway kuwooda ugu ururada badan. Haddana tirada ururada baaxadda leh ee badan iyo tayadooda waa kaafkii kan yari. Kee ciladu ku jirtaa? Waxaan su'aashaas weydiinayaa Cabdiqaadir ama Cabdul.
oo arrimaha ururada ka shaqeeya kusoo dhawow. ugu horreyn waxaan jeclaa horta inaan fursada ugu faa'iidaystay inaan uga mahadceliyo Shiina iyo tiimkiisa XPN dooda wanaagsan ee noo soo diyaariyeen. waxaan sidoo kale jeclahay inaan maaragta uga mahadceliyo dadka igala qayb qaadanaya nahay waddan ay caadi ka tahay ururada. marka anigu ma haysto ururada oo batay in ay wax loo qaban waayey, laakiin ururada laftooda ayaa u baahan in ay su-aal isweydiiyaan. laakiin ururada inay bataan keligeed ma aha cillad oo maaragtay hor istaagi karta in wax la qabto. marka anigu waxay la tahay dhowr qodob in hoosta laga xariiqo waa muhiim si maaragtay wax loo qabto. sababtoo waxa ugu muhiimsan waxaa waaye ururada badnaanshahoodana maaha yaraanshahoodana maaha, laakiin waxqabadkii iyo shaqadii unbaa muhiim. marka waxay ila tahay horta in dood furan la helo. hadda doodan aan maanta ku jirno kaleeto waxay keenaysaa inay irido badan ay dadka u furto maaragtay in waxqabadkii u bato. waxaa kaloo muhiima iyadana in la fahmo ama la aqoonsado meelaha laysaga dhow yahay ama meelaha layskaga mid yahay oo dalku ay iska imaanayaan. aqoon-yahanada Soomaaliyeed siiba kuwooda qurbaha ama galbeedka ku dhaqan ee wax ku bartay qaarkoodna ay wax ka dhigaan jaamacadaha ugu waaweyn dunida, soo la saaraan hogaamiyada halkan aynu ku noolnahay ee horu maray. marka ay bulshadooda soo dhexgalaan maxaa shuuqiya oo hoos u dhiga oo ay ugu hadlaan wax aan ka sugoolin aqoon-yahanka. haddaan kala qaadno oo aan kala qaadno qurbaha iyo wadankii minaha wadankii camal mithaal dee haddaad aqoon-yahan tahay oo aad ideas la tagtid isbedel maaragtay bulshada kusoo kordhin karaya, dee waxaan isleeyahay de inta badan siyaasiyiinta meesha joogta kaa qaadan mayaan, kaa dhegeysan mayaan. waxaa lagu arki karayaa maaragtay qof qurbaha kusoo wareeray inaad tahay. aqoon-yahanka Yurub joogana xoogaha de waxaan isleeyahay odayaashu waa iska soo tuurayeen maaragtay mas-uuliyadda, laakiin waxaan isleeyahay dhaqankii micnaha wuxuu yiri Cabdiraxmaan Zii walaa saaxiibkii wuxuu yiri de waa la dhalan ragay muu yiri ama de waa la dabakidiyey de micnaha awal odayaasha ugu sameeyay, laakiin hadda odayaasha laakiin waxaan isleeyahay weli aqoon-yahaniintan doorkooda ciyaari karaan, odayaashana doorkooda ciyaari karaan. marka waxaan u baahannahay un keli platform oo de sidaan camal horta aqoon-yahaniinta way kala duwan yihiin. qaar shahaado iska soo samaystay iyo qaar oo maaragtay mufakiriin oo wax soo kordhin karaa jira, laakiin weli waxay u baahan yihiin challengeyaal badan iska haysta ama caqabado badan oo ay ka mid yihiin waqtiga, dhaqaala, maaragtay platform oo lagu doodo. waxaa loo baahan yahay iyo hay'ado cilmi baaris ah oo maaragtay wax soo saara maaragtay aqoontaasna maaragtay dadkii hirgelin lahaa hadday dowlad tahay hadday urur tahayba in ayadana loo diyaariya maaragtay hay'ada sii wada hore u sii wada. su-aasha ugu horreysa aan idin weydiinayno waxa ay tahay oo aan doonayno in aad si qayaxan dadka ugu qeexdaan waa maxay danta guud. kusoo dhawaada.